baaritaan dheer kadib oo dhinacyo badan leh ciidanka biliisku markii uu galay aniga oo uga mahad celinaya ilaahay waxaanu maanta oo ay taariikhdu tahay horta intaan meydka la helin ciidanka biliisku waxay galeen howlgal waxay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhiig leh Muna Maxamed Cabdilaahi oo gacan ku dhiiglaha koobaad iyo 5 qof oo kale kuwaas oo kuwa lagu eedeynaya falkan dilka ee foosha xun ee hore aan dalka uga dhicin inta kadib waxaanu galay baadi goobkii sidii loo heli lahaa rag iyo ruux marxuumad Ruqiya Saciid Ayaale ciidanka biliiska iyo dadweyne ehelkii oo iskaashanaya iyo dad badan oo kale reer Soomaaliland oo halkan uga mahad celinaya waxa maanta lagu guuleystay in la helo marxuumadda oo god looga qoday kadib markii la dilay laguna aasay guriga gacan ku dhiigleyda laga soo qabtay oo gurigeeda oo ku yaala xaafadda Axmed Macalin Haaruun agagaarka kaybalka dhinaciisa maxaan ku dhahaa bari waqooyi kadib halka waxa laga soo saaray meydkii marxuumadda waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waxaan halkan tacsiyo uga dirayaa ehelkii iyo ubadkii iyo saygeedii iyo walaaladeed uu ka mid yahay Cabdirasaaq Saciid Ayaale uu ka mid yahay